السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد أيا عاو أي هبين آد في عنا تهاي عربا دور الريموت إن عن ضدك الصوماليات مالك أي جوجان هرتا عاو حكومة دنقرن رئيس الوزراء حمزة بقى عصوبة باللابن سيد قدوميها قلها الشعب كبهدو وشاقي إن أي أفرينيهين إسل حساب تنك يإن سؤال لويديو يإن أي دتك محانكو هذا وشرحان waxa ay ku jiraan waxa xafiisyada dhaxdooda lagu hayo dadku in badan oo kamida ma oga marka waxaana la yiraa maamahdii carabiga ahayd maxay annaasu aduw lima jahala dadku mar walba waxa ay jaahilka ka yihiin cadow u yihiin hadii marka xukuumadii aan waxay haydo aan la ogeyn jaahil laga yahay xukuumadda lafsadeeda cadow loo noqonaya waana soo dhacday hore waa loo soo arkay marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta ha u diyaar garoobaano mashruucaas لحساب تنكأه أو حكومة دنا عاو هالكن إنه غشكتي إن أي أفرن تهاي أو بنانته وحكى مرة بقى وحربا إن سدح قلب كسوق قوة دوني دو سدح واشلي والنصار دافتي مامته أو أنجونا يبريه دي اللي رصاص صعد شلي وحكى برشوا يعبرك قاضي شو أي لا ذا في عناي أو شلي نوقف سومن إن سيحو جنو سيكردنو wixii gaabis ahayo shalay nagu dhacayna inaan soo kabno waayo waxaan maanta ka shaqeynaynaa ay birri si ay birri fiican ay u noqoto haddii aanan ka shaqeynina marka waxaan rabnaa waa la sheegay dagaalka dib u xareynta dalka ka socdo waa la sheegay cafinta deynta iyo waqtiga dhow ee aan rajaynayno waa la sheegay arrimaha bini'aadamnimada ee socday iyo sida looga gudbaayo waa la sheegay dalku inuu isku filnaado oo wax soo saar yeesho in loo baahan yahay waa la sheegay soo saarkaasi isu falnaashaas waxyaabaha ay u baahan tahay waa la sheegay in badan oo kamid ah marka mar raba inaan ku celiyo waxaan rabaa laakiin waxaas dalka Soomaaliya la yiraahdo dadkiisa dabar ayaa ku xirnaa way dabranaayeen ma socon karin hadday socdaanna ma dheerayn karin dabarkii inay iska furaan ayaa dadku go'aan ay ku gaareen dabarku muxuu ahaa nimanka khawaarijta ah darrada ay keeneen nidaam darrada ay dhaqeen iyo dhaqankaas kala shakiga iyo cabsida ah ee dadku in badan oo dadkeena kamid ah xaqiiqada inaan dareensanayna laga yaabaa laakiin dadkeena in badan oo kamid ah barida soo socota oo maalintii nabadda ah ayay ka baqayaan barraan ka cabsanayna maantaan joognaa marka wiilka isbaarada jidka u taala daatiraawna maanta wax ma ayna ka barraan muxuu ahay طبعاً كوسيد ولا ما أنت محايز كون كيسي ما أنت كليه يعني بريحهم إنه يتاي وحبا أنا يدعين وحد عيها أي حميهين يعني نقول قفنا لكن وعكسي أنت أنصار دافن كليا ده دي بقول نقولنا بريده إنه مرور بويكفي عنا ما أنت الجوجل يشال ذين ويكفي عنا مركب بريه توقف عنها لكن وحيكفي عنها وحيتاي inaan dadka iyo dawladdu inay qaabeeyaan berri waxa ay tahay berrida aan rabnaahay inaan annaga intaan sharaxnaa berri waxaan rabnaa berri sida ay u taalo waxa aan ka gudubnay waxa aan ku tilaabsanay sidaas ayaan rabnaa berri waa inaan annagu haddii aan nahay dawlad iyo haddii aan nahay dadweynaba aan isu sheegno waay dalka dad badan qiimo u bixiyay halkan wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ka sheegay odayaasheena dhaqanka ah ee dawladii markay naga burburtay tiirka lagu tiirsan ayaga noqday ee dawlad dhisida soo bilaabay toodii hadda maatay laakiin inta sababtay maxaa dawlad Soomaaliyeed u dhisaysaan maxaa dadku u heshiisiinaysaan maxaa wanaag uga talinaysaan inta ku dhimatay tiradaad arkayseen oo wasiirku u sheegay waay waxa halkan loo soo sawiro masaal laga soo qaaday wiilal dhalinyaro ah oo da'yar oo mid waliba la dhihi karo cimrigiisa meeshii ugu macna badneed waay oo u dhintay maxaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya dadkan maxaa sharaftooda iyo karaamadooda iyo diinkooda iyo dadnimadooda in la qurxiyo aad u rabtaad ugu dagaalamaysaa u dhinteen farxaan waa arkaysay sawirkiisa wajigiisa intuu la ekaa xasan tuure waa arkaysay intuu la ekaa dhammaan iyo misaal looga soo qaaday laakiin intoo kale oo dhalinyaro ah oo maxaan ku raad dalka daafiisa kala duwan ku dhimanaysa dagaalkan hadda socda iyo ka sii horba
ku dhimanaysa ayaa jira saraakiil tiro badan shacab odaya culima yacni wax walba leh waxaan rabnaa marka maanta waxaa noo bilowday qaabayntii berri aan qaabayn lahayn oo berri inay berri fiican tahayna aan qaabayn lahayn kuna qanci lahayn inay berri fiican tahay sidaas daraaddeed xalay xafladdii maxaanku idhahdaa lagu soo xirayey ee kalfadhigii labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ka sheegay maalin horena shirki tacliintan aan ka sheegay caawar inaan ku celiyo aan jecelahay waa inaan berrideenna qaabaynaa berrideenna si aan u qaabaynahay waa in berri xuduuda leh la garanayo wakti leh mustaqbalkaasaan yeelaynaa mustaqbal qurxoon keliya naguma filla waxaan qaabaynay oon soo fikirnay oon wadnaa ka shaqaynaynaa mimbarkan ama muxuu ahay madashaanna in wax badan oo ka mid ay fududayso aan rabnaa soomaaliya soomaaliya 1960kii ayay dowlad noqotay 2060 soomaaliya 100 sano oo dowladnimo ayay jirtaa 2060 37 sano ayaa nooga dhiman waqti oo cimriga bini aadamka ku dheer waaye laakiin waqti cimriga ummadaha ku gaaban waaye aad u gaaban marka cimriga ummadaha laga hadlaayo laakiin cumriga bini aadamka 37 sano way dheer tahay waxaan rabnaa su-aasha ah 2060 marka la gaaro oo dowladnimadeennu ay qarni jirsato soomaaliyadan maanta aan joogno ee sidaan ah ee shabaabka laga baqayo ee uu dadka qarxinayo ee dagaalka lagu hayo ee daaraheenna ay duduunsan yihiin oo waddooyinkeenna ay burbursan yihiin oo korontadeenna hadda la lahaa warshado kuma shaqey karaan la leeyahay meelo badan ma gaadda annagoo maanta berri soomaaliya noocee aan u baahna waxaasoo dhan sidee soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa inay jirto maanta dunida horu martay ee maanta aan fiirinayno dhammaan dadka maanta ku nool ma keenin horumarkaas kuwii hore aabbayaashii hore awoowayaashii hore dadkii hore yaa ka shaqeeyey in maanta ay sidaas u ekaato dalka maanta qurxoon maanta annaga mas-uuliyaddana saan waxay tahay inaan ka shaqayno kuwaa berri imaanayo muxuu ahaay ogaas bashiir iyo aniga iyo intana lamida iyo 2060 ma joogno laakiin dadkeenniyaa jooga ilmaheenniyaa jooga kuwan awoowaha unahaa jooga kuwa aan abuulanka unahayaa jooga soomaaliyaa joogta oo aan rabno inay qurxoonaadaan oo ayna yidhaahdaan odayaasheennii xilligaa noolaay ayaa noo jeexay waddadan aan ku gaaray maanta nolosha ummadaha adduunka oo qurqurxoonad aragteen oo aan mar walba wallaahi magaalada waa ku daalaye muqdisho waxeeda bal aan ka soo hawo badasho oo aan aado muxuu ahaay meel hebel ama diaspora hadduu ahayna baasboorkiis meeshu ka soo qaatay inuu ayaanto kusoo nasto u tago haddaanu ahayna tigid iyo visa inta qaatay inuu tago bilaahi calaykum maxaa noo diiday annaga kuwa loo imaanaya inaan noqono kuwa la soo aadayo oo loo imaanayo oo yurub markii qabowga iyo barafka ka dhacaya ay halkan yimaadaan oo caalamka carabta iyo khaliijka marka kulaylka aad u fara badan uu ka jira ay soo baxaan ay halkan yimaadaan maxaa noo diiday ilaahayaa na siiyey fursaddaas oo kii qabow ka soo cararana uu imaan karo kii kuleyl ka soo cararana meel uu imaan karo oo sanadka 12 bilood aadan shaatiga iska bedelayn dharkii samarka dharkii winterka dharkii maxaanku idhahdaa foolka dharkii hebrowga aanan lahayn annagay nagu xiran tahay waxaan rabaa marka 2060 soomaaliya aan qaabaynaynaa maanta ka shaqaynaynaa waxaan ka bilaabaynaa oo bilow ka ah maanta horta inaan ka hadalno shabaabka dalka markaan ka xoreyna ka bacdi maxaan samaynaynaa deynta marka nalaga cafiyo kadib maxaan samaynaynaa waa seef laba afley ah shabaabka dalka haddaan ka xoreynana qaabdarrana waa qabnaa waa aadi karnaa waddo qaabdarro lagu tagana waa furan tahay waddadii aan rabnay oo ciziga iyo karaamada iyo sharafta lagu tagaayana waa furan tahay khiyaarka ama doorashaduna annaga iskale nalo caliyaa ilaha iyo caashaa ilahayd
wax macna nin daalay warkiis waay iyo nin xigmad waay nin caqli waay warkiis waay hebel ay ilahay waxba lagu ma laha karo wixii ilaahay ku qadaray un baa ku ahaa kara iyo waxaad adigu kasbatay ilaahay laba waa yuwadaa laakiin ma yeelaa la dhahay ilaahay uu cibaadaysan maaye hay cadaabin ilaahay gaalka kaafirka ah inuu jannada daraqsi waa awoodaa ilaahay uu guursan maaye hay gablamin ilaahay adoon guursanin inuu ilmo ku siiyo waa awoodaa horaa loo soo yeelo waa la soo arkay laakiin ilaahay muxuu yidhi janno maaragta haa waddadaasaa jannada tagta mar ku soco ku tag haddaad ku tegi wayso waddada kale waa taas naaray ku geynay adigaa khiyaarka lagu siiye marka inaad taranta ma rabtaa haa sidaasaa loo tarmaa wiil iyo gabar waddada ku tarmi karaan oo dadku ku tarmo waa waddadaas waddo kasta laguma tarmi karo waddadaas mar waa tarmaysaa haddaad mari wayso tarmi maysid maxaan ku rahdaa cudurro iyo aids iyo qaabdarro iyo walaxaan loo joogin aad u tegaysaa waddadaas kale ka leexo waa tii ilaahay ka dayriyo waa qoomuluud iyo wixii la xiriiray iyo qaabdarro kale waay ha aadin laguma tarmo annaga maanta waxaa noo yaalla waxay tahay war waddadii fiicnayd oo jiilal fiican iyo sharaf iyo karaamo fiican dadkeena aan uga tegi lahayn waa noo tilmaamantaa aan yeelno berri shabaab muggaan ka baxno laba waddaa noo kala furan inaan xumaantii shabaab xumaan kale ku bedelno iyo inaan wanaaggii aan rabno maanta nafta u hurno wiilashaas cadcad iyo odayaashaas sharafta leh ay u dhammaadeen iyo gabdhahaasi inaan qaadno taladeeda waa qodob deynka haddii naga cafiyo 5 bilyan oo dollar ayaan dhowr iyo 10 sano cafinteeda la tacaaluhaynaa oo 40 sano 50 sano 60 sano ka hor aan qaadanay yaan waxaan la tacaalaynaa sidii iskama gudi karna ee hana laga cafiyaan leenahay maxaana looga cafinayaa si aan fursad u helno aan deyn kale u qaadan karno deynka kale oo aan qaadano laba waddo noo furaya waddo horumarin ah oo ah korontadeenna muxuu warshada ma kici kartaa lalahaayo koronto warshada kicisa inaan samaysano baddaan intaasoo 100 kun oo tan oo kalluun ah ku jirtaa la yiri soo ma qabsan karne qaab aan ku soo qabsanay iyo si aan ku yeelano inaan yeelano khayraad beeraan leenahay baahina waa nahay inaan beer tacbanno oo aan cunto u baahannahay soo saarno ka dheerin aan soo saarno dibadda u dhoofsano iyo muxuu ahay inta ka sii badan liisku waa dheeryahay labaa marka noo furan inaan deyn inta soo qaadano bishii mushaar u kala qaadano iyo gargaar iyo mucaawano ku bixinno na lagu lahaado sanadka dambe haddana mid kale soo qaadano sanadka ku xiga soo qaadano 20 sano kadibna la yiraahdo 5 bilyan aan la tacaalinay 500 bilyan oo deyn ahna lagu leeyahay ana laga cafiyo haddana jidkaan u soo istaagay labada waddo ee noo furan labadaas waddo waay go-aan inaan ka gaarno oo deynkaas aan qaadanaynahay sida wax soo saar u yeelan lahaa dowladdu inay deynka inta qaadato ay iska mishaarsato ma aha dowladdu deynka hadday qaadato waa inay ku bixisaa adeeg bulsho jaamacada ku dhistaa iskuulaad ku dhistaa muxuu xarumo cilmi baaris ku samaysaa qofka Soomaaliga wax la baray productive wax soo saaro noqona wax soo saarkaas dawladdu cashuur ku leedahay cashuurtaas dawladda wax u ah dadkeena shaqo ma qabno shaqo la'aan baaga mundada cawada oo shaqo la'aanta wasiirku uu caaw tilmaamay cadadkeeda laakiin su'aala meesha ku qarso dadkeenu ma shaqaaleysmaa ma leeyahay xirfadihii oo shaqo hadaad u abuurto xataa maanta dalka shabaab mugan ka raacdayna koow shaqooyin badan abuurmay xirfadihii shaqo hadaanan lahayn soo ajnabi noo imaan maayo in shaqada in la qabtaan rabnaa guriga in la dhisaan rabnaa wadadii in la dhisaan rabnaa dekadii in la dhisaan rabnaa maxaan ku raadaa airportka in la dhisaan rabnaa maxaan korontadii in maxaan ku raadaa la kiciyaan rabnaa biyihii nadiifka in la helaan rabnaa adeegii caafimaad in la helaan rabnaa waxaan aqrinay statistics hal dhakhtar iyo hal gabar oo umuliso ah 10 kun oo qofood oo Soomaaliya ku aadayeen dhaqaatiirteena umulisaasheen in marka la isku fiiriyo xamar ha fiirinin Soomaaliya miyigay ku nooshahay miyigana dhakhtar ma jiro
umulisa lama jirto dhakhtar Soomaali iyo umulisa Soomaaliya jira sidaas daraadeed waxaan u aragnaa markaan fiirino dhaqaatiir badan aan qabnaa hadana oo qaarkood in badan ka mid ay magaaladan Baagamundo ku yihiin shaqo la'aan ku yihiin laakiin meesha shaqada jirta aan tegi karin sidaas daraadeed dawladdu waxa ay u qaadan karta deynka qaybta ay ka qaadan karto waa qayb wax soo saar qayb wax soo saar waa maxay tamarta aadanaha in la horumariyo dadku inay caafimaad qabaan ay shaqaysan karaan caafimaad loo helo inay wax yaqaanaan xirfada leeyihiin ay ku shaqaystaan ama dawladda u shaqeeyaan ama private u shaqeeyaan ama company ajnabi u shaqeeyaan ama xataa ugu yaraan dibadda shaqaha u aadeen laakiin waa inuu xirfad leeyahay adduunyada dada injineero dhaqaatiir professor dhoofiya annaguna domestic workers aan dhoofinaa shaqaalaha guryaha ka shaqeeya nadiifiye ilmahaye qof waayeel xanaaneeye darawal iyo wax la mid ah dawladdu haday marka qaadanaysa deynkeeda ma sigin laakiin deynka intiisa badan private ku aada warshadu aada maxaan ku wax soo saar beereed u aada wax soo saar badeed u aada wax soo saar xoolo u aada xooliyo nool yaan dareeminaa dhoofinaa haddaan Soomaaliya ku qalno ee hilib aan dhoofin hilibku neefka hilibkiisa iyo neefka nool horta hilibkiisa qaalisan shaqa waa laga helo intaasoo qofoodoo shaqaalaha ka shaqaysay si hilib loo helo inta qofoodoo shaqaalaha ka shaqaysay dawladda cashuur ay ka qaadatay ninka ganacsadaha warshada iskalena cashuur kale dawladda ka qaadatay dhoofka dibadda loo dirayna dawladdu lacag adag ay ka heshay waa hilibkii maqaarkii ka waran qoobabkii muxuu xoolaha ka waran uuski iyo dhiiggii iyo maxaan ku radaa bacrin loo bedelay ka waran meeqa warshadooda ka dhinac samaysmay neefkii noolaayo shalay soo baac dhahay aad dirtay haddii aad inta uga shaqeyso waa kasnaa waxa suurtagalka ee fursadaha aan leenahay waa kasnaa waa ujeednaa waxaa naga dhiman inaan karnaa naga dhiman ma maqli jirteen reer hebel waa kasaan laakiin ma karaan reer hebelna waa karaan ma kasaan mar annagu wixii waa kasnaa inaan karnaa naga dhiman inaan kari weyno duruufo qaarkeed lagu kalifana waa jirtaa dadka ana waa jirtaa midda duruufaha lagu kalifaa waa midda dawladdu ay ku mashquulsan tahay oo ay maxaan ku yiraahdaa dalkii in la xoreeyo cadawga in la jibiyo iyo ay wajah midda karidda dadka aan ka rabnaa marka karidda dadku maxaa ugu horeeya waxaa lagu maamaahi jiray maamaadii ahayd qoonsi siman ma liibaan dadku hadday sinmaan ana amiir wa anta amiir ma yasuuq alximaarti luqad carabi lagu dhaawaa qoonsi siman ma liibaana la yiri haddaan si simanno oon dawlad iyo madax dawladda dhexdeeda iyo madax bulshada dhexdeeda oo madax dhaqameedyada iyo culimada iyo abwaanada iyo gabdhaha ay ugu horeeyaan aan kala yeelan weyno oo aan is ixtiraam weyno isku aqbali weyno waa naloo yaabaa waxaan rabnaa marka madashaan caawa furantay ilaahay idinkiis waa sidii ay u furantay way socod doontaa wasiiradaan maalin walba inaa imaan doonto guddiyada baarlamaanka lafsadoodu way imaanayaan mar dambana muxuu ahay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka madaxdeeda iyo golayaasheedana meesha kastoo ay joogaan ayaguna inay dadka hor fariistaan oo ay ilaan dadka Soomaaliyeed xamar un maaha meesha oo ay joogaan oo wax lagu su'aalayo ayaguna waa inay marka dadka Soomaaliyeed fursad inay u helaan dawladduna inay fursad u hesho dadka inay u sheegto si looga baaqsado annaasu caduw lima jahala dadku inay ogaadaan dawladdu waxa ay damacsan tahay soo wado propaganda haddii aan taas la helin bedelkeeda maxaa galayo propagandada caayida qaabdarrada wiilasha iyo gabdhaha aan dhalnay oo annaga kuweena ah ee irsaaqadu ay ka gashay inay dad caayaan inay qof dacaayadeeyaan inay walax macluumaad been ay sheegaan si klikta meesha lagu siinayo ay lacag uga helaan aygaas rasuudooda way iska dhammaan doonaan markay meel ay nolol fiican ka heli karaan mugay arkaan dagaalkaas ay social media la dhex fadhiyaan tuugi
bahashii hebelowgii reer hebelkii sidaan ahay ay ka dhex leeyihiin meesha way ka maarmi doonaan sidooda laakiin annagaana laga rabaa fursadihii uga maarmi lahaayeen inaan abuurno oo aanay muxuu ahay nolol decent ah oo sharaf leh helaan mar kale waxaan rabaa inaan bogaadiyo xukuumadda dhan qaran ra-iisul wasaare xamse cabdi barre golihiisa wasiirada dhammaan wasiiru dowla wasiir ku-xigeen wasaaradahooda agaasima dhammaan hawshaan socotay hawl la wada qabtay waayo markii ay banooniga xaggooda ka keeneen baarlamaanka inuu qaaday banooniga isagana intii suurtagal ahayd ay suubiyeen waa tan la sheegayey hal kal fadhi laba kal fadhi oo baarlamaankeenu jiraa kal fadhigii koowaad asaa isdhisayay guddiyadiisa guddoonkiisa wixiisa door waxaasuu ku mashquulsanaa xeer hoosaadkiisa siduu u shaqaynaya isqaabayntiisuu ku jiray kal fadhigii labaadna waa kaa 11 sharci ansixiyey ma dhicin hore uma dhicin shaqa ka socota baarlamaanku muxuu ansixin lahaa xukuumadda haddaanay u keenin xukuumaddu wixii ay keentay maxay nafci ay yeelan lahaayeen baarlamaanka haddaan u ansixin ogoobay sidaasaa yaa la isugu baahan yahay qof keligeed meel taagan oo jasiirad ku nooloo wax sameeya nidaamka dawliga waa midka shacabkiina waa kana maanta ay taagan tahay gudoomiyaha golaha shacabka waad maqlayseen sharciyada fursadaha ciriiri nagu ah laana deyn cafinta waqtiyay leedahay sharci hebel ma leedihiin maya waqti hebel inaad samaysatiin aa lidinka rabaa sharcigaan ma leedihiin maya asla waqti hebel inaad samaysiin aa lidinka rabaa waa waqtiyeysnaayeen degdegsiiyaan galnay sharciyadaasi wax yaraa noo dhiman ama waa naga dhammaanayaan kabacdi sharciya aan fursad u haysanno waqtigooda annaga aan xukunno dadka la horgeeyo dooda laga furo dhegaysiya laga sameeyo inta aanan golayaashaba la keen yaan samayna ayaan hore waxaan shirka culimmada ka sheegay dalka dastuurkiisa waxaa ku qoran sharci aan waafaqsanayn ama aan la jaan qaadi karin shareecada islaamka dalkaas sharci kama noqon karo yaa sheegaya inuu sharcigani shareecada islaamka la jaan qaadi kara in kale waataan maalin dhaweed bilownay culimadan ka rabnaa iyo dadka Soomaaliyeed in la iskaashado meeshii aydan in la sameeyo si sharcigaani waa waafaqsan yahay loo yiraahdo arrimaha marka hortabinta leh ra'iisul wasaaraha uu ka hadlay marka laga yimaado dagaalka iyo deyn cafinta iyo gargaarka bini'aadanimada marka laga yimaado waxyaabaha kale hortabinta loo kamid tahay xasilinta iyo waxay ra'iisul wasaaraha ka hadlay hal meel oo cawada qof kasta dadka intiisa badan ay ka wada dhalan su'aalihiina ku jiray wasiiradu ka ra'iisul meel walba ku jiro gudoomiyaha baarlamaanka waa dastuurkeena ugaasyadeennii dadkii ansixiye ka mid ahay caawa qaara meesha ka fadhiyo 11 sano sii maraya sida laga dhawaajiyeyna wixii oo 90% jarjar waa dood kama taagna inta yartahay dood ka taagan tahayna 10 sano laga soo dooday sanad walba waa laga dooday waa la yaqaana qodob kasta waxaa la yiri waxaa la yeeli karaa saana waa la yeeli karaa saana waa la yeeli karaa saana waa la yeeli karaa go'aan siyaasadeed oo kalan qaadanay ah ayaa naga maqnaa waa bilowna hadda go'aanka siyaasadeed bilow asoo ah waa soo socdiyaa laakiin hal mid aan ka ballanay dastuurka mashruuc ma ahan dastuurka waa masiirkeennii soomaalida qurxoon 40 sano kadib 37 sano kadib aan rabnaahi wadadii aan u mari lahayn waayo dastuurka sidaas daraaddeed dastuurka mashruuc ma waa qodobka labaad waxaan go'aaminay dastuurka Soomaaliya dalka Soomaaliya dibadiisa looga hadli maayo dalkeena gudihiisa looga hadlaa maalin aan Baydhabo tagno maalin aan Kismaayo tagno maalin aan Garowe tagno maalin aan Dhuusamareeb tagno maalin aan Jowhar tagno xamar mar aan joogno dastuurkeena dalka gudihiisa looga hadlaa dibadda lala aadi maayo wax lagu fasax qaato oo war aniguna igu darba labadoo beri inaan 5-star hotel iska soo socdaan rabaaye la yiraahdo ma ahan ummadaha sideenoo kala dastuurkooda dib u eeg dastuuraan qabi jirnay meel cilaa kama banaan bilaabane 9 cishay ku qaadataa 120 cishay ku qaadataa dastuurka inay dib u eegis inta ku sameeyaan ay sii daayaan 11 sano waa la sii daynaa dastuurka ilaahay idankiis uu dhammaanaa marka waxaan rabnaa marka haddii aan noqonno kuwo
waxa qurxoon guri muraayada ma ahana guri kale ma rabo yiraahda guriga oo hori karana aqal Soomaaliga maxaan ku yiraahdaa kabada iyo filqaha ay saarayeen uu yahay gurigii oo aqal Soomaaliga ku jira laakiin maskaxdiisa waxa ku taagan gurigan waa ka soconaya aniga ka saaraba waa fiican tahay laakiin kanaad ma haysaa horta kan qurxi baridaad kaas ka gaarayso horta kan qurxi dastuur dhammaystiran aan rabnaa munazzal ma aha ilaahay aayado qur'aan uu soo dejiyay ma fikir dad isku keena waa dhiman yahay markasta waxba ka dhiman laakiin maanta meeshaan uu noo joogaa beejku ugu dambeeyaan uga qoraynaa 5 sano kadib aad dastuurka dib loo eegaa 10 sano kadib aad dib loo eegaa waa dhahayna muddadaas aan ku dhaqmayna markii la gaaro dib loo ooga waa noo fiican yahay wax laga bedela marahaye 10 sano kalaan aan ku dhaqmayna waxa oo shaqaynayo waa wax noocaas adduunyaduna sidaas ay u dhaqantaa dastuur inta maalin la qoray abadiye iska ahoon waxba laga bedelaynoon dib loo eegayn ma jiro sidaas daraadeed haddaan halka meel iyo waxa aniga aan dareensanahay intaan ku dhaga ayra lama dhamaystiri karo dastuurku waa sidan dastuurka waa la dhamaystiraa caqligeenu inta una siiyo oo ugu saxsanaan ku dhamaystiraynaa duruufaheenu intay naga ogolaadaan oo ugu saxsan waa ku dhamaystiraynaa oo hakan mayno u joogi mayno waxa aan 10 sano kadib gaari doono maanta wallahi meeshaas ma joogno ma dhahayn meesha maanta aan joognaan go'aan ku gaarina waxa meesha maanta aan joogno aan qaba karnana waa qabanayna hadii alla yiraahdo dadka Soomaaliyeed marka saddexdaas waxyaabood ha u diyaar garoobaan shabaab kadib waxaan sameeyay deyn cafinta kadib waxaan sameeyay deeqda bini aadamnimo ee gacantu ay noo hoorsan tahay sidaan uga guuri lahayn oo aan uga guuri lahayn walaxan annaga tacbanay oo annaga leenahay beerteena ka soo baxay xoolaheena ka yimiday maxaan ku lahaa baddeena ka yimiday dhulkeena hoostiisa ka yimiday ilaa nimco badan oo aanan garanaynin oo laakiin in badan oo kamid ah naloo garanayo maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa taan baddii Soomaaliyeed baa la xaalufiyay waa la waxay caawa inta ku hadlayno kun markab ka badan baddeena ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunka daldalanayso oo mid kamid oo wax laga siinayna aanu ku jirin markii kuwa la sharciyeeyo dawladda xoogaa yar oo lacag dakhli oo ka soo galaayo badii la xaalufiyo 30 sano baddeena la xaalufiyo wiilkaygiyo sida kaliya lagu xaalufinayna waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dawladdu leedahay inaan ilaashano seen ku helayna badda inaan ilaalino dhaqaalaan u baahannahay dhaqaalihi inaan ayada ka keenno Soomaa haddaan kaash xataa keenay inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kalluumayso laakiin shaqadan ABCD aan nala qabo qalabkan nasiib haye mid kala dhahayo waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gatay waa lagu waxay war batroolka waa laga guurowaa waa laga socdaa waa laga tagawaa meesha asoo noogu jira maan ka tagaynaa waa laga guurowaa adduunyadu waa ka socotaa maalin walba maqashaa war haddii sanado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan ka sii faa'iidi karno aan wax ku qabsano aan ka faa'iidno aan Soomaalida 2060 ka qurxoon aan u adeegsano batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahay waa la bixinaa si aan u noolaano kalluunka ma iibsan karno bishadaalka ma iibsan karno waa tuugsan karnaa laakiin miya caqliga meeshu naga jira fiiriya amrul waaqic xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaado huwaada iyo been isu sheega 33 sano nagu haysaa meesha waxaan dhabta ahayn oo aanan isu sheegin waxa dhabta aan isu sheegno waxa dhabta aan isu sheegno oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno meel uu toosin ka raba hadday jirto meeshaan xoogaa sidaan si ka fiican oo loo sameyn karaa jirto aan dhahno farta aan ku fiiqno haddii inta ra'yiga talada la siiyo oo qofkaas meesha jooga ama xukuumaddaas ama dawladdaas ay yeeli weysana raalli ah aan dhahno aan diidno
laakiin dee yaanan lugaha iyo gacmaha intaan iska xirno afkii baa juuqdi gabay yaanan noqonino haddaan inta aadana maxay ahayd ninkii jaahilkaa muxuu yidhi haddii la hadlana waa af sallax ku dheg haddii la aamusana astaqfirullah alcasiim ilaahay ariga la isla ka daay maayo marka war af sallax ku dheg ma aha markaad waxaad dhabta oo runta aad sheegto ha ogolaanin in lagu yidhaha cirkaas oo duma iyo waa lagu xiraa iyo intaa lagaa dhaca iyo amaa lagu xayaa maya war waxaan ku anficayn maya iska dheh maalintaad dhima lahaydna waa dhimanay maalintaad dhuroobi lahaydna waa dhuroobi ka shaqeey inaad dhuroobi marka ilaahay idinkiis annaga Soomaaliya dimuqraadi ah oo xukunka meel kasta uu jooga ay u hayaan dadku ay u dhiibteen hadday ugu bogi waayaan ay ka qaada karaan yaan rabnaa inaan jooga jeclaaya wax la yiraahdo xukunka dimuqraadiyadda dhexdeeda kama shaqeyso wadadaasaan rabnaa inaan marno mar kale waa ku istaagtay waaba waxbay baa la jira muxuu ahayd markii maanta dhaqanka noo bilowday ee madashaan ka bilowdayna waa noo soconayaa xukuumaddu haddaati sida uu sheegay wiilkayga waxa waaye meeshaan iyo meel kastoo noqotaba madasha wax isweydiinta ah ee maxaan ku raadayay ka jawaabidda ah waa furan tahay weliba meel weyn oo meeshaan oo kale inay ka furanto maalin cadna weliba ay furanto dadku si ay fursad ugu helaan ay u yimaadaan u soo buuxiyaan howlkan yaa loo baahan yahay habeen saq dhexe iyo waqti dambe iyo dad soo daahay iyo maaha maalmaha jumcada maalmaha fasaxa shaqada la leeyahay maalmaha gelinka dambe ee ciyaw inta la dhageyso fiid horaba dadku ay aadi karaan guryahooda in la qabto waayo madalada ee habeenkii saqda dhexe in la qabto maaha su'aalahaasi ay nooga yaraadaan su'aaluhu inay noo bataan maslaxaddu ku jirtaa anaa ugu horeeyo bilaabi doona inta dawladda iga hooseysana waa laga rabaa inay yimaadaan